inkasta oo aad carabka ku dhufatay in madaxweynaha uu hadda yimid wax kulamo ah oo gaargaar ah oo ka dhacay garowe ma jiraan? inkastoo gelinkii dambe maanta uu yimid madaxweynaha, maadaama ay madaxtooyadu ku wada sugan yihiin, kuwa si gaar ama kuwa si hoose ah oo ay dhex maray ma garan karno, laakiin kuwa si toosa loo shaaciyo ma jiraan. inkastoo madaxweynaha uu sheegay 2 maalmood inuu joogi doono magaalada garowe, madaxda kala duwan ee puntland ay is arkayaan, taasina ay macnaheeda tahay in caawa wixii ka dambeeya ay kulamo gaara yeelan karaan arrimaha soomaaliya ama xiriirka labada dhinac ay uga wada hadli doonaan. inta aad og tahay yaa la filayaa inay xafladda caleemasaarka ka hadlaan? khudbadaha sida warbixinadu ay sheegayaan, waxaa ka hadli doona madaxweynaha dowladda federaalka, madaxweyneyaashii hore ee dowladda federaalka soo maray qaybtood, madaxda puntland iyo madaxdii hore ee puntland iyo madaxda hadda la wareegeysa. sidoo kaleeto hogaamiyaal kale oo sida mucaaradka oo kale iyagana doonayay inay goobta ka hadlaan, si officialna loogu cazimay shirka. ayaga iminka waxay sheegeen inaysan hadda khudbad ku lahayn. sida siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo maanta aan la kulmay, waxa uu sheegay in puntland si toosa uga helay casumaada kasoo qaybgalka shirka, laakiin madaxweynaha puntland oo xalay u yeeray uu ka codsaday inuusan ka hadlin goobta, sida uu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur, shuruud dhanka madaxda federaalka ka timid, islamarkaasina kadib isaga uu aqbalay arrintaa. marka waxayna ahayd arrimahani hadalhaynta ugu weyneyd ee aada maalmihii ugu dambeeyey loo hadalhayay, maadaama dhinacyadaasi ku kala aragti duwan arrimahaasi ay halkan imaanayaan. waxay ahayd mid sawiro ka duwan dadka waxyaabaha ay ka hadlayeen iyadana bixinaysay. caleemasaarkana noociisa waxaad moodaa inuu yahay kii ugu horeeyey oo intaas oo kala duwan ku kulmiyey magaalada garowe waktigan. waxaana goordhow bilaabanaysay helitaanka xarunta madaxtooyada oo halka ay xafladda ka furmayso daqiiqado kadib. waxaana la filayaa in madaxda iyo qeybaha kala duwan caleemasaarka isugu yimid ay goobtaasina isku arki doonaan. nuux, marka laga tago dabaaldeg iyo duco iyo soo dhoweyn loo sameynayo madaxweynaha cusub ee puntland, maxaa ugu jirta puntland xafladdan sidaa u ballaaran la isugu yimid marka laga tago un hambalyeynta? caleemasaarkan waxa uu lamid yahay jaamac caleemasaarada kale ee soo mara, laakiin dadka waxyaabaha ay aadka u daneynayaan waxaa kamid ah khudbooyinka madaxda kala duwan ay halkaasi kasoo jeedin doonaan. sidoo kaleeto maadaama madaxweynaha cusub ee puntland uu ku cusub yahay puntland, dadka ku dhaqan reer puntland ama deegaanada puntland dalka dibadiisa iyo gudihiisaba ay